عدوغا مالي بشيكتو عمريغا مسو قابتو عدودا مسو ليحدي عليهو عسيا مونو كغلو لعركو موقو وامي عوا وامي علنك كرقادا aynu wada ciidne calanka kor u qaada hey hey waamee cawa waamee calanka kor u qaada calanka kor u qaada aynu wada ciidne cadowga ma libin sheegto cimriga ma soo gaabto cududa ma soo liixde calayahow cisiya moono kaga lula cirko muuqo waamee calanka kor u qaada aynu wada ciidne calanka kor u qaada hey hey waamee cawa waamee calanka kor u qaada calanka kor u qaada aynu wada ciidne waxaa maanta magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo loogu dabaaldegayo xuska sanad guurada 12aad ee maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May. Munaasabadan xuska maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa maanta si mug looga dhex muuqday ciidamada booliska, ciidamada asluubta, laamaha kala duwan ee dawladda ee gobolka Hawd iyo sidoo kale ururada bulshada kuwaasi oo socod dheer oo lagu soo maray jidadka halbowlaha u ah magaalada Balligubadle ee xarunta gobolka Hawd kuwaasi oo gabagabadii iskugu soo biyashubtay madal aad u qurux badan oo loo asteeyay munaasabada dabaaldega xuska sanad guurada 12aad ee maalinta qarannimada Soomaaliland ee 18 May. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan, barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax, maayirka degmada Balligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine, xildhibaan Axmed Maxamed Maxamuud Kaare iyo xildhibaan Maxamed Xuseen Jaamac Raambo, siyaasiyiin, qurbajoog iyo mas'uuliyiin kala duwan. waxaan leenahay maanta waa maalin qaran, waa maalintii dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu la soo noqday xornimadiisa. halkan aynu maanta ku sugannahay waa goobtii halganka, waa halkii laga helay biyaha baadka lagana waayay basaaska. waxaan leenahay maanta waxaynu kaga duwanahay meelaha kale waa goobtii halganka ku suntanayd. aad iyo aad baan wadankayga ku soonahay oo ku faraxsan yahay. waxaan doonayaa inaan salaamo reer Balligubadle especially sanad guurada 12aad Soomaaliland. aad baan ugu faraxsanahay hambalyo ayaan leeyahay. mar labaad waxaan jecelahay inaan idinku hambaliyeeyo degmadan Balligubadle gaar ahaan gobolka Hawd. waxaan jecelahay inaan mar labaad idinku hambaliyeeyo jaamacaddii gobolka oo iyadana Hawd University oo iyaduna idin furantay insha Allah markii koowaad xafladii koowaad ee ka soo qayb gasha. runtii caasimadii halkanka weeye, waa halkii Soomaaliland badankeeda markii maalmuhu adkaayeen ay ka soo bilaabantay hawl kasta oo maanta aynu halkan ku aragno. runtii maanta sanad guuradan 12aad waxaynu isgarab taagaynaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka dagaalamaya tiida hore. aynu leenahay waanu idin garab taaganahay, garbihiinaanu nahay. maanta munaasabadeenu waxay ku soo hagaagtay iyadoo wixii aynu maanta qarankeenii 32 sano aynu ku soo tabcaynay lagaga soo duulay dibadda iyo gudaha intaba. waxa weeye waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi haddii aanu qarankan maanta hogaaminayn wallaahi inaynaan caga ku taagnaanin. munaasabadan qiimaha badan maalinta aadkeena ugu weyn 18 May sanad guuradii 12aad waxaan leeyahay hambalyo reer Laascaanood waynu marti galinaynaa. waxaan halkan uga jeedinayaa Balligubadle aanu idinku marti galinaynaa walaalayaal, nabadaynu ka wada shaqaynaynaa. hore umaan arag Balligubadle, laakiin maanta waxa farxad weyn oo meeyda mid ila mid aniga inaan taaganahay mimbarkii Balligubadle oo 18 May ku xusaya. waxaan leeyahay hambalyo maalinta qarannimada Soomaaliland 18 May. ciid mubaarak dhammaantiinba. waxaan intaa ku darayaa
halkan waxa weeyaan halkii laga xoreeyay Somaliland waxaan leenahay Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland guul baynu rajaynaynaa wiilka hawdna waxaan leenahay guul insha Allah runtii gobolka waxa maanta aniga iyo noo farxada xildhibaan Maxamed Xuseen Raambo oo halkan laga soo doortay labadayadaba inaanu xafladda 18 May aanu halkan idinka qayb galno farxad weyn bay noo tahay inaanu gobolkii taariikhda Somaliland ku unkanayd ee bayska u ahaa halkankii dib u xoreynta Somaliland aanu kala qayb qaadano shacabka farxadooda runtii waxaan leeyahay Somaliland gobolka hawd waxay u taqaanaa oo kaliya gobolkii halkanka gobolka hawd kuma taariikhaysno kaliya gobolka halkanka wuxuu ku taariikhaysan yahay gobolkii nabadeynta Somaliland marka labaad waxaan dhammaanteen ugu hambalyeeyaa sanad guurada 12aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshada madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland hambalyo maanta waa 18 May waa dharaar ku astaysan maalintii ay shacabka reer Somaliland xorriyadoodii 60 luntay kala soo noqdeen dalkii Soomaaliya waa maalin halgan adag loo huray oo naf iyo maalba lahaa dad badan baa u dhintay ilaahay ha u naxariisto intuu u dhimatay in badan waa u naafoobeen iyagana ilaahay baynu baryanaa inaguna waynu garab taaganahay geedii ay dadka reer Somaliland ku soo celiyeen xorriyadooda waxa xuduun iyo xarun u ahayd xarunta Beligubadle ee gobolka Hawd maadaama oo ahayd xaruntii SNM waxaan halkan uga hambalyeeynaa dhammaan Jamhuuriyadda Somaliland gudaha iyo dibadba sanad guurada 12aad ee ka soo wareegtay waqtigii aan dib ula soo noqonnay xornimadii 60kii inaga luntay hambalyo waxaan kaloo halkan aan ka hambalyeynayaa maanta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee halyeeyada aan ku seexanayno ee nabadgelyada maanta aan ku naaloonayno ilaahay ka sokow sababta u ah ayaan hagan hambalyo uga diraynaa hambalyo baan leenahay duulaanka la inaga soo qaaday iyo cadowga Jamhuuriyadda Somaliland ku soo duulayna waxaan leenahay waan ka guuleysanaynaa insha Allah biidnillaahi kariim qof kastoo isku dayo Somaliland inuu waxyeelayn kari maayo aad iyo aad maasantiin dhammaantiinba dadweynaha qiimaha leh ee reer Beligubadle ee shucuurtooda maanta muujinaya aad iyo aad baan u salaamayaa maanta waa maalin weyn waxaa farxad weyn dhammaanteen inoo ah inaynu 32 sano u dabaaldegno maalintii aynu dib u yagleelay ee aynu qarannimada iyo dawladnimada iyo gobonnimada dib ula soo noqonnay waxaan doonayaa inaan labada taariikhood ay Somaliland leedahay ee midna tahay 18 May 1991 midna tahay 26 June 1960 waxa ay ku kala duwan yihiin aynu da'yarta iyo dadka reer Somaliland ba xasuusino 18 May waa maalintii aynu dib ula soo noqonnay dawladnimadii luntay iyo gobonnimadii naga luntay midowgii aynu la galay Soomaaliya ama dalkii la oran jiray Soomaaliya 26 June maalinna waa 26 June waa maalintii aynu xornimada qaadanay maantana waa maalintaynu gobonnimada la soo noqonnay dadka qaar baa waxay yiraahdaan maxaa loo weynayn waayay 26 June oo iyadana aynu dabaaldegno maxaa loo weynayn waayo 18 May loo weyneeyaa labaduba waa laba maalmood oo qiimo leh laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin xornimada aynu Ingiriiska ka qaadanay 26 June iyada waxa lagu helay dhaqdhaqaaq wadaninimo 18 May gobonnimada aynu la soo noqonnay xinjir iyo dhiigii geesiga lagu helay sidaasay ku kala duwan yihiin oo ay u kala wan yihiin oo shucuurta iyo dareenka dadkana ugu kala badan yihiin صار ما رد جاء صح صح
munaasabadda xuska 12 guurada ka soo wareegtay maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 8 May ayaa maanta sidoo kale si ballaaran looga xusay degmooyinka Balle Cabane, Sayla iyo Gumuraha ee gobolka Hawd. Maxamed Shiciir Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Balli Gubadle.